waaxda saadaasha hawada ee dalkani Kenya ayaa sheegtay in la rajaynayo inay qaybo badan oo wadanka kamid ah roobab culus ka da'aan ilaa dabayaaqada toddobaadkani. meelaha la filayo in laga roobeysto waxaa kamid ah buuraleyda bariga, galbeedka, koonfurta iyo bartamaha gobolka Rift Valley, gobolka xeebta waqooyi bari iyo qaybo kamid ah waqooyiga galbeed ee dalka. agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee Kenya, Stella Aura, ayaa sidoo kale sheegtay in laga cabsi qabo in dabaylo xoogan ay ku dhuftaan waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ee dalka. waaxda ayaa xustay in la rajaynayo in ismaamulada xoolo dhaqatada ee Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa iyo Isiolo ay roobab ka da'aan labada gelin ee maalintu ay ka kooban tahay. saadaasha waxaa qayb ka ah in dabaylo qaar ah laga dareemi karo ismaamulada Garissa, Marsabit iyo Isiolo.